waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah filimka caanka ICD ka oo kamid ah aflaamta ay Soomaalidu aad ku jeceshahay daawashadiisa haddaba waxaan eegi doonaa filimkani waxyaabaha laga qoray balse intaan u guda galin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa janaalka soo birto oo subscribe saarto sidoo kale haddii muuqaalku cajab geliyo like inoo saar laagtu wax ka dhiwimaysa anagana waxay noo dhiirigelin waxaa laga yaabaa in saaxiibo badan inuu gaaro muuqaalkeena wixii ay qabto commentiga hoos inoogu raabsiina share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal daafa waxaad ogaataa halkan aniga aad i keentay in dhibaatadan ka soo gaari doonto akhayna isbitaare halkan waa maxkamaddii deebaana maxkamadiisa dambiilaha xaq uma laha inuu ku qilqiliyo ma fahantay filimkan CD waxa uu kamid yahay aflaamta Sinidool ku xarakeeyay marka la eego aflaamtii uu sagaashameeyadii uu sameeyay jiray markaan eegno filimkani waxa uu soo baxay ama tiyaatarada Hindi la saaray 11 Abriil sanadii 1997 filimkan waxa hogaamiyaal ka wada Sinidool Rafina Tandan Anubam Khayr ee Soomaalidu ay dhahaan Aabaska Farida Jalaal Ashish Fidiyaardi ninka lagu yeero Soomaalidu soo qaar waxay u yaqaanaan Indar maadaama filimkan CD Indar lagu yeeray waxa dad joog kale oo ka soo muuqda kamid ah Raji Barbar ninka lagu magacaabo sidoo kale Rija Ahuja saaxiibayaal markaan eegno filimkani waxa agaasimo ka ah ama agaasimay ninka lagu magacaabo Gudu Danu nin lagu magacaabo waxaana soo saara ka ah NR Bajisia nin lagu yeero saaxiibayaal markaan eegno filimkani muusigada waxa uu garaacay walaalaha kale ah Dilip Sin iyo sidoo kale Samir Sin heesaha waxa qoray sidoo kale la xameeyay ninka lagu magacaabo Samir markaan eegno filimkani lacagaha lagu qaraj gareeyay filimka waxa lagu qaraj gareeyay adduun lacageed gaaray 7.50 karoor waxa uu soo xareeyay saaxiibayaal 18.40 karoor oo lacagta Hindiya markaan eegno natiijada waxa uu noqday filim super hit ah ama guul weyn gaaray saaxiibayaal filimkani waxa hadaan eegno aflaamta kaalinta uu ka galay aflaamta lacag badnaa uu soo xareeyay sida shaac laga qaaday filimkan waxa weeyaan filimkii shanaad ee lacag ugu badnaa soo xareeyay sanadii 1997 shabakada caanka IMDb ratingka ay ku sameeyay ama dadweynaha codeynay waxa la siiyay 5.8 tobankiiba markaan eegno filimkani xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay ilaa dhowr xaqiiqo ayaan eegi doonaa saaxiibayaal xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay filimkan xaqiiqada ugu horeysa ku bilaabi doona waxa weeyaan waxa la leeyahay filimkani waa mid kamid ah aflaamtii guulaha weyn u gaaray ninka lagu magacaabo Sinidool aflaamtu uu sameeyay sagaashameeyadii xaqiiqada labaad waxa la leeyahay filimka heesta ku jirta filimkan ee Meredilligii waxa ay noqotay hees aad loo jeclaystay sanadaas waxay noqotay sidoo kale mid kamid ah heesaha hirgalay oo hidka ama hid noqday يعني هستو waxay noqotay hees aad looga jeclaystay gudaha dalka India xaqiiqada saddexaad atiishada caanka ee Mumtaz Kulkarni ayaa ahayd dooqa koobaad ee Bosco Rafina Tandan laakiin waa iska diiday sababtana lama shaacin saaxiibayaal xaqiiqada afraad ee aan ka eegi doono waxa weeyaan hal hees Samatum Sina ku jeebahay waxa lagu soo bandhigay dareen aad u weyn kaasoo ah dareen jecel waxaana shaac laga qaadin heestu ama ay noqotay mid kamid ah heesaha jaceylka ee aadka loo jeclaystay sagaashameeyadii heestu waxa ku luuqeynayaan fanaaniinta dhankaasi koonfurta Hindiya caanka ka ah Hari Haran iyo sidoo kale Jidra laakiin heestu waxa weeyaan luqad ahaan marka la eego Urdu ama Hindi weeyaan saaxiibayaal laakiin Hari Haran dhankaasi koonfurta Hindiya ayuu xilliga caanka ah saaxiibayaal xaqiiqada ugu dambeysay isla heestan ayaan ku guda jirnaa heestan ayayna khusaysaa waxa la leeyahay Samatum Sina ku jeebahay waxa loo aaday ama lagu soo duubay gudaha dalkaasi Switzerland magaalo yar oo lagu magacaabo Bern qaasatan xaafadeeda Interlaken xaafad lagu magacaabo ayaa muuqaalka dhamaan ama muuqaalada heestaasi lagu soo duubay sida aad ka dhahan karto marka aad eegto muuqaalada heestaasi saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xogtii xaqiiqooyinkii aan kala wadaagayna filimka weyn ee CD ka oo kamid ah aflaamta ay Soomaalidu aadka u jeclaa jirtay haddaba ma xiiseesaa filimkani CD mase daabatay weliga haddii aad daabatay magaaladii ka daabatay fadlan haddii aad muuqaal ka heshay like inoo saar janaalka haddaad ku cusubtaana subscribe inoo saar siina share gareeyo la wadaaga asxaabtaada wixii ay qabtana commentiga hoos inoogu reeb waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena